soo dhawaada guys waa qaybtii labaad ee taxaneena kaaliyuhu wuxuu xasuusiyay in gabadha haddii ay dhimato qalabka uu baabi'i doono awoodiisana si weyn u dhaawacmi doonto gabadhu waxay markiiba ka baryootantay inuu u naxariisto waxayna ballan qaaday inay heli doonto hab ay qalabka ugu soo saarto jirkeeda ninku wuxuu ogolaaday inuu siiyo 2 maalmood oo dheeraad ah hadafka kaliya oo ay haysatay wuxuu ahaa inay ka argudato qoyska adeerkeed ayaa dilay waalidkeed waxay xitaa in adeerteed ku sameeyeen qaliin qurxin ah si ay ugu ekaato iyada qorshahoodu wuxuu ahaa in adeerteed ay booskeeda gasho oo ay dhaxsho hantida oo dhan sidaa darteed sababta kaliya ee gabadha u doonaysay inay u sii noolaato waxay ahayd inay ka argudato maalintii xigtay ayay ogaatay in ninku uusan u ogolaanaynin inay banaanka baxdo xitaa telefoonkeedii gacanta dib uguma soo celin waxay isku dayday inay si yaro macaan ula dhaqanto si uu u siiyo telefoon ay kula xiriirto dadka banaanka jooga ninkuna si qabow ayuu ugu sheegay in haddii ay sii wado dhaqankaas uu dili doono way joojisay dabadeed waxay xasuustay in eeyaha aysan qamriga u adkaysan karin maadaama ninku uu ahaa dabaco ruuxeed waxay u malaysay in qamrigu uu isaguna saameyn doono waxay rajaynaysay inay mayr beeliso kadibna ay baxsato ayadoo iska dhigaysa inay biyo u keenayso ayay si qarsoodi ah qamri ugu daadisay markii ay aragtay inuu wareersan yahay waxay mooday in qorshuhu shaqeeyey waxayna si ulkac ah dhulka ugu riday koobkeedii si ay dareenkiisa u mashquuliso kadibna waxay afka ku qaaday qamriga waxayna mar kale dhunkatay ninka isla markiiba indhihiisu way casaadeen dhagaha dawacaduna madaxiisa ayay ka soo baxeen waxayna u malaysay inuu suuxayo laakiin ninku wuxuu weydiiyey sababta ay u siisay daawo suuxdin ah wuxuuna sheegay ayadoo dhibkaas isu keentay wuxuuna ku cadaadiyey fadhiga kursiga isagoo isku dayay inuu dhunkado markaasi ayay gabadhu garatay inay gashay dhibaato kasii weyn markii dambe waxay waqtigii saxda ahaa timid xafladii dhalashadeeda qof walba wuu yaabay markii uu arkay haweeney kale oo si buuxda ugu ekeed ayada oo weliba masraxa taagan haweeneydaasn waxay ahayd in adeerteed oo qalin qurxin lagu sameeyey si ay aqoonsigeeda uga xadato ugana dhaxasho hantida qoyskeeda markii qorshaheedu fashilmay ayay amartay 20 ilaalo kuwaas oo doonaya inay qabtaan gabadha dhabta ah kaaliyihii gabadha la socday wuxuu si fudud u lulay maruuxadiisii laablaabneyd ilbiriqsigii xigay dhammaan 20 ilaalo way suuxeen oo dhulka ay ku dhaceen in adeerteed iyo qoyskeeduba cabsi weyn ayay galeen waxay fahmi waayeen sida gabadha ugu badbaadiyay markii buurta laga tuuray iyo sida ay qof awood badan u taqaanay xaqiiqadu waxay ahayd in markii buurta laga tuuray uu badbaadiyay nin dabaco aan dhiman oo awoodiisa tababarta sababtoo ah si kama ayay u dhunkatay dhunkashadaasi ayaa qalabkiisii awoodda ahaa ee lagu tababaran jiray ayaa si lanfalaana ugu wareegay jirkeeda sidaa darteed ninku wuu carooday wuxuuna ku xiray gurigiisa wuxuu sheegay inay bixi karto oo kaliya marka qalabka laga saaro jirkeeda gabadhuna ma garanaynin sida qalabka looga saaro kadibna waxay ogaatay in dabacadu ay qamriga ku sarqaanto intaas kadib ninkii markii uu gabadha fadhiga ka tuuray ayuu qoorteedu qaniinay si uu dhiiggeeda u cabo dhiiggeedana wuxuu daaweeyey xaaladiisa wuxuuna ku noqday sida caadiga ahayd kadib wuxuu bogsiiyey dhaawaceeda wuxuuna siiyey hal cosi marka laga reebo inay guriga ka baxdo waxayna ka codsatay telefoon gacanta ah waxayna la xiriirtay qareenkeeda waxayna ogaatay xafladda dhalashadeeda 18aad dardaarankii waalidkeedna wuxuu sheegay inay hantida qoyska dhaxli doonto markay 18 sano gaarto waxayna qorshaysay inay xafladda ku fashiliso shirqoolka qoyska ilma adeerteed welina ma bixi karin sababtoo ah qalabkii wuxuu weli ku jiray jirkeeda kaaliyihina ugu dambeyn wuxuu sheegay in qalabka laga saari karo oo keliya haddii ay la seexato ninka aan dhimanaynin waxay go'aansatay inay nafteeda u hurto si ay u soo ceshato hantida qoyskeeda waxayna xiratay dhar dhalaalaya si ay u soo jiidato dabacada aan dhimanayn markuu sii wuxuu arkay gabar yar oo aad u qurux badan misana dhilaalaysa wuu u soo dhawaaday wuxuuna kor u qaaday gabadhan quruxda u saaxiibka ah kadibna si tartiib ah ayuu dhulka u dhigay kaaliyihii wuxuu ka baqay inay ahayd jacaylkii qadarka u ahaa oo sababi kara geeridiisa ugu dambeyn ninkiiba uu ogolaaday kaaliyaha inuu geeyo xafladda dhalashada in adeerteedna waxay samaysatay qaliin qurxin ah si ay u ekaato ayada gabadha dhabta ahaydna waxa ay timid xafladda ayada oo uu la socdo kaaliyaha intaas kadib gabadhii beenta ahayd waxay ku dhaaratay inay weligeed qaliin sameynin waxayna tiri haddii aan been sheegayo hilaac ay ugu dhaco isla markiiba hilaac ayaa ku dhacay beenteediina waa la ogaaday martidiina waxay gartay in gabadhii beenta ahayd ay noqotay khiyaanoole gabadhii dhabta ahaydna ay noqotay dhaxal sugaha saxda ah qoyskii ilma adeerteedna way argagaxeen maadaama ay u haysteen inay horey u dileen